waxaan ku dhex jiraa gudihii diyaaradda meesha laga wadaa weliba meeshan ma aha meel igu soo orda ma fahanteen ninka diyaaradda wada halkaas ayuu fariistaa ninka So the flags along this wall during the Second World War. Assalaamu alaykum maanta waxaan joognaa aan waliba isla arki doonaa airportka Hamilton qaabka uu sameeysan yahay waliba waxaan gali doonaa qaybta lagu keediyay diyaaradaha dagaalka ee ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka ayagoo waliba xatay ilaa ay hadda shaqeynayaan marka aan isla daawan muuqaalkan Baby, let me put your panties to the side. I'ma make you feel alright. 'Cause I'ma give you what you need. waxaan meesha arki doonaa waxyaabaha taariikhooyinka waddanka soo maray waliba diyaaradihii dagaalka laga qayb gali jiray dadka lagu baabiin jiray meeshan waa meel ayada dhan wada taariikh ah magaalada dhan baa waxay u timaadaa dalxiis si ay u wada sawirtaan ama maxay ahayd ay u wada ogaadaan soo ninkan meesha ku jira waa nimankii diyaaradaha miigi wax wadi jiray bahashan calaamad baalka dharkan ay wataan diyaaradaha markii la miigi waliba markuu socdo oksijiintaasi waxaa lagu leeyahay meesha ku qoran tahay wuxuu badanaa caawinayaa markii pressureka oo maxay oksijiinta hoos u dhaco kale afka la gashanayaa oksijiin fiican ayuu siinayaa soo markii dagaalka wax lagu jiro waa mustadi inaad saa u labisan tahay diyaaradahan awoodaysa waliba miyeeg meel aad u qurux badan oo alaabo badan macnaha diyaaradii dhan la isku wada keenay wixii dagaaladii dhan waa isla fiiri doonaa muuqaalkan dad ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsanaynaa subscribe like share si uu dad badan u gaaro waliba muuqaalada aan aad u soo badino waxaana diyaaradaha meesha yaalaan marka waa diyaaradihii markii dhacayeen iyadoo muuqaal yar inta videona baa kaa saameysay dagaalamaysay waxaa soo dhanaa meesha yaalaan waxaan isku day doonaa diyaarad walba inaan galno waliba gudaheeda aan dhex galno aan isla aragno qaabka u dhex samaysan tahay xataa diyaaraddan meesha saa u taalla ee aad arkaysaan waxaa la isticmaalay 1940kii hadda meesha saa u taaran diyaaradda iga dambeysa ee waliba dadkaas u korayaan waxa weeyaan waa diyaarad shaqeysa ilaa imika waa ay duushaa waa diyaaradii ka soo qayb galay dagaalka waliba ay lagu qaadi jiray ciidamada soo gudaheeda gali doonaa waa arki doonaa si u samaysan tahay asla socono muuqaalkan So the flags along this wall during the Second World War, there was a program called the British Commonwealth Air Training Program, and people from these countries came to Canada during the Second World War to learn how to fly. British Commonwealth Air Training Program, and they came to airports like Mount Hope, like we're in now, and dozens of other airports in southern Ontario and in other parts of the country. During the program, over 131,000 aircrew were trained how to fly, and then they were shipped back to Europe and they participated in the war. So we have flags from all the countries that came to places like Hamilton and other airports in southern Ontario. Thank you so much. sidaad aragteen ninkan explain fiican buu nasiyay ama tusaale fiican so waxa uu yiri intaan calaamo ah waa inta wadamo ay noo yimaadeen oo waliba aan barnay diyaaradaha waliba khaasatan xaafadan aan joogno ee Hamilton la yiraahdo Ontario gobolka Ontario ka tirsan diyaaradan waxa la sheegay inay tahay diyaaradda kaliya aan ka qayb galin dagaalka labaad ee adduunka waliba diyaaradaha inta yeelan waa dagaalada uu ka qayb galeen laakiin tan kama qayb galin saarkaysa waxa ku qoran qoraal oo shiinaysa ku qoran meeshaasi marka waa diyaarada ay sameeyeen dadka indhayarta ah waxaan u sameeyeen Soviyetka waxa lagu toobari jiray dadka diyaaradaha yani bayloodada lagu toobari jiray marka sidaas inta loo keenay ayadoo waliba laga codsaday dadka holkan iska leh inay soo dhax dhigaan sidoo ninka cadaanka oo ii sheegay marka asla socono muuqaal tan diyaarada aad u weyn tahay waa
diyaaraddan waxaa la yiraahdaa Royal Canadian waa diyaaradihii dagaalka aad ugu qayb galay ee waliba dagaalka labaad ee adduunka hadda arkaysaan meesha ku qoran tahay Royal Canadian Air Force intaano calana meesha wada safan oo waliba Uganda iyo Senegal ay kamid yihiin maadaama Afrikaan ahayo intaas aan aqaano marka wadamadan arkaysaan meesha wada safan waxa la yiri waa dadku waxay kamid ahaayeen ee Canada ku tababartay dagaalada labaad ee adduunka markay ka qayb galayeen bayloodyaasha marka meesha lagu tababaray xaafadan aan joogno Hamilton ayaa la yiraahdaa xaafadaasaan lagu tababari jiray marka intaas oo wadan oo dagaalka adduunka labaad ay ka qayb qaatay marka calankayga ka dhaxraadiyo oo ninka xataa waa weydiyo waxaan abu Soomaali ma kamid ahayn miyaa dadkaas ayre markaas uu yiri maya Soomaali kama mid ahayn alaabtan laba motoori baash li jiro amaleen ama aqaan inta la egtaar gacanta garabkeeda ilaa halkaas u tagaya gacanteeda diyaaradaha mid ka sii weyn tan aad u weetay aad u weetay miriyo hadda muuqaalku waxa la moodaa inay yar tahay waa caadi ma waxaan isku daynaa diyaaradda gudaheeda inaan galno anaga waliba dadka meesha ku wada shaqeeya marka aan isla socono Go to the top, you can just step in okay and you can see what's going on. waa wareeg gudahana hadda ku jirno diyaaraddan hadda asla saaranahay wax weyn way shaqeysaa ilaa hadda way duushaa lagu leeyahay waa diyaaradaha la isticmaalay kamid tahay gudaheeda aragsi ultimate laakiin waa yara mugdi xogaa si fiican looma arkayo waqti waxaa imaaday xogaa xilli dambe waxaa meelaha qaar in la gal gudaheeda xataa waa xiran gudaha diyaaradda ay furfureen diyaaradahan intooda badan waa kuwa shaqeeya waliba ayagoo socdaan oo yani dhulka ku orordayeen oo la duulin rabo xataa waa idin tusin doonaa airport way meesha diyaaraddan iga dambaysa ay gudaheeda aan geli doona arkaysaan waxaa lagu sameeyay Canada waliba meel la yiraahdo Montreal waxaan la sameeyay taariikhda ahayd 1955 kii la sameeyay January 1961 na waa la kixiyay macnaha iyada waxaa la sameeyay 6 sano bis la sameeyay diyaaradda meesha laga dhaxlo gudaha la rabo inaan ku siiyo hal baa gidi wax ku dhex jira diyaaraddiisa aad arkaysaan waa kali maasha ma baashi laga wadaayay saas oo qabanaysa qaatun meesha arkaysaa saas loo hagayaa soo waa miig camal arkaysan dabalka korna hadda uu iga furan yahay waa miig camal laba qof loogu tago inta qof kale fariisanaya baashaas ka wadaayada badnimada laga badaa dhag laga siinaya waa wax alaabteeda dhan waa kuwana oo meesha laga taabanayo badnimada laga taabanayo soo waxan waa kuwii ka soo dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka marka diyaarado badan aan dhexgeli doonaa qaar u soo isla arkayna asla socono muuqaalka diyaaradda markaysan waxaa lagu qaadayay ciidamada waliba hawada markay ka badboodayeen waa arkaysaa soo waa diyaarad ciidana gudaheeda soo samaysata waa arkaysaa markay dagaalka ka qayb galayeen waa diyaaradda lagu aruurinayay soo gudahaas waliba waxaan geli doonaa qayb diyaaradda laga wadaayay oo soo socon xaafadda aan joogno waxaa la yiraahdaa Hamilton Ontario ku taala waa xaafad qadiimi ah oo meelihii dagaalka laga xukumi jiray ciidan ha noqdaan oo dagaalada la geenay diyaaradaha iyo wax dhan meelay lagu kala wadaayo dhan Canada number 1 waa Hamilton marka Hamilton is not easy waa meel maxay ahayd howl badan laga hayay ka dhigantay waxaan ku dhex jiraa gudihii diyaaradda meesha laga wadaayo waliba meeshan ma aha meel igu soo orda ma fahanteen hawada ku jira iska dhig meel caadi ah diyaaradda waa kaasa ninka diyaaradda wada halkaas ayuu fariistaa ninkan kalena waa isla diyaaradda pilotka labaad waa lacala ninka wax ku dhaco yani just in case every diyaarad laba qof wada wada ama 3 ama 4 wax ka badan hal ma wado soo marka aan isla socono xataa meeshan kaliya ma ilaa inta muujeedan ayadoo dhan waa wada mashiin meesha meel caadi ah ma you know isi meeshan kale iga dambaysa wax dhan wada record waxba lagu sameeyaa marka diyaaraddan hadda aan saaranahay waa tii ciidanka lagu daagureynay The flight engineer was responsible for monitoring the engines, the fuel, hydraulics, electrical systems, air systems. They did most of the flight's paperwork and they brought the coffee. So most important role. Seat on the right is the first officer, seat on the left is the captain. Virtually identical instrumentation and controls in front of both pilots, so they would take turns flying. One would be pilot flying, while the other would be pilot monitoring. And the next leg they switch roles.
The only real difference, if you look down the side of the captain's seat, you'll see looks like a third of a steering wheel. That's called a tiller, and the tiller is used to steer the aircraft on the ground, and that's only on the captain's side of the aircraft. Where you're standing used to be 2 other jump seats, so there used to be 5 people in this cockpit. So it was a little crowded when you had all the seats back and people in it. But usually they're sitting for 3 people, right here? A 3-person crew would operate the aircraft. The other 2 would either be check airmen or repositioning pilots, things like that. Okay. If you want to see some complexity, take a look behind the panel and see how this is wired. Here? Yeah, and be glad you're not the guys who got to figure out which one of those wires broke. Yeah. Yeah, but a lot of wire here. Wow. You can see that here. This, let's see. This is between banalkan ku jiraan. Yeah. Okay. So thank you so much for explaining. Guys, have a great day. You too. iyadoo caadi ahayd diyaaradii waatana hadda ku dhex jirnay. Tell me what your name is. I don't really care who you came with. waxaa cajiiba dagaalka labaad adduunka ma ahayn dagaal kaliya dadweynaha kaliyaas ay qaadi jireen ama marka ay samayn jireen xataa waxaa lagu leeyahay xayawaanada ama qooleyda way ka mid ahayd dagaalka kuwa ka qayb qaadanaya sida hadda meeshan ay ku xusan waa ila arki kartaan waxaa weeyaan ninkan meesha ku jira wuxuu hayaa qooley si fiican u fiiri qooleydaas oo hayo waxay ka qayb qaadan jirtay dagaalka ciidamo weeyaan qooleyaal badan ay wataan dagaalka ka qayb siin jireen soo muuqaalka fiiri markaas ninka qoolida saa u hayo dagaalka nimanka dagaalada ku jireen ayuu ka mid ahaa bahashan waa meesha qoolida lagu aruurin jiray ama maxay ahayd xilligaas lagu keedin jiray diyaaradda ay la fuuli jireen so waa kan asagoo diyaarad maaragtay ayagoo marka diyaaradda asagoo saar loo dhiibay qoolida waa kana asagoo weliba haddana maxaa la yidhaha saxaaro maa la dhahaa oo lagu aruuriyo qoolida ayuu saa u wadaa marka waxaa lagu leeyahay xataa qooliyadaasi waxay ka mid ahaayeen kuwa dagaalka ka qayb qaadanaya Baby. diyaaradaha lagu riixaa diyaaradaha markay soo caga dhigtaan ilaa hadda waa la isticmaalaa kan meelaha qaar doorada qaar aan ku arkay diyaaradaha halkaasaa fuulaysaa baalin halkan waxana diyaaradaha lagu riixayaa lagu bixinaa wadadooda lagu saxayaa diyaaradda ilaa wadadaas galaysa tangi miya kan sida u dagaalami jirtay diyaaraddan markaysan xabadaha u tuuri jirtay tan aad saa arkaysaan waa tan meeshaan taalla gudahaas ay dadka saa u booqanayaan marka gudaheeda geli doonaa meeshan waa meesha diyaaradda gudihii loo gelayo miigta gudaha waa kanaa sidii hadda tacaamul asaga intaas saas laga wadaya baasha xabadaha meesha laga tuuraayo waxaan alaabta meesha laga kala furaayo sida arkaysaan waxa weeyaan miigiya ku dhex jirnaa geedda oksijiinka afka lagu xirinaya bis le naga maqan waduulayaniya ama hawada geliya hadda waa caadi maaya korkaasaa saaranaya baashasa ku dhex jirnaa you know so marka intaa ku jirta xabadii meesha laga tuuraayo you know everything so let's see laba qof lagu fariistaa midna gadaashaas weeyaan midna hortaan meesha baashan aad u weyn tahay markaysaan kursigan waa kuraas any diyaarad uu leeyahay u malaynayaa bad hadda exactly ahaan diyaaraddan inuu leeyahay noo sheegay ama loo isticmaalay marka waxa weeyaan parachute-ka you know like parachute-ka markii
asaarantaa waxay problem yar ku qabsado asaa ku soo tuuray kursigan ala tool barshoodkaas markaasi saas ku soo baxaya banaanka tahay dan waxaan u fiirsaysaa meelaha wax soo baxaya meelaha wax soo baxaya kor ku tuuray balka kor qaadnay hoosta ku jira balka ku qaadnay ala tool balka ugu xidhnay saas markaa ugu galaysa مركب كده استيارات هذا فلفول إن قربنا كان يجري معي عفنا دوار كده أنا سوى أهم كذا سي عشان نواجه هذا يكون حنا جتي زيارة حتى أصارنا وحنا هذا التوري كده يكون تابعكم ما التوري قدر نيابي كان التور دي قالوا كشكينا ودك سو مربن فيديو يرا كان كشكينا تايم ما هي عن الحياه حضورنا ما شاء الله وضع الشركه مالك يا رب كلسانه بالكده دونك waxay hoosta joogaasha markayna waa kala intii ma tiyaada lagu gida dad wax badan ma sha diyaarada saaray halka turkaas saarna laga soo joogaasha ala soo hatta diyaarada maxalli albaabadeeda daaqada ah qoryaha markaas ugu soo baxsan waxaas oo dhan bal isku dilay dagaalka labaad adduunka caadi ma ahayn baalkaana fahmi waayay baalkaan hal isoo sheego meesha banaankeedana waa ka sababa airport caadi ah diyaaradaha ku soo degan hada sidaad arkaysan diyaaradihii iyo jalkii oo kuwana meesha joogaan muuqaalkan asaas ku sii dheeraad maro intaan muuqaalkiisa ka qaybtay maxay ilaa sidaas iyo